Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada kanaalka dhakhtarkaaga. Kanaalkan waxaad kala socon doontaa cashar caafimaad oo taxanayaal ah. Muuqaalkan kooban waxaynu isla eegi doonaa tissueska uu jirkeena uu leeyahay. Muuqaalkii hore waxaan kaga soo hadlay ama sharaxaad kooban aan ka bixiyay cellska. Muuqaalkan waxaan sharaxaad kooban sidoo kale ka bixi doonaa tissueska uu jirkeenu leeyahay. Marka tissue haddaynu qeexno ama waa maxay tissue haddaynu dhahno, waa koox unugyo isku tagtagay. Marka cells isku tagtagay ama unugyo isku tagtagay ayaa waxay sameynayaan tissue ay sameynayaan. Marka jirka bini'aadamka waxaa ku jiro noocyo badan oo unugyo ah ama tissue, laakiin markii si fiican loogu fiirsaday waxaa la ogaaday in dhammaantood iskugu imaanayaan 4 nooc oo tissues ah. Marka 4taas nooc oo kala ah: number 1 epithelial tissue, number 2 connective tissue, number 3 muscle tissue, number 4 nervous tissue. Marka dhammaan 4taba shaqooyin kala duwan ayay noo qabtaan. Sidoo kale shaqooyinka ay qabanayaan waxa u fududeynayo qaabka ay u egyihiin. Tusaale haddaynu soo qaadano nervous tissue, haddaad u fiirsatid waxay u samaysan yihiin qaab wax gudbin camal. Marka waxa fududeynayo qaabkii u egyihiin ayaa waxay fududeynayaan shaqada ay qabanayaan, maadaama ay og yihiin wax fariin gudbinaya camal. Shaqada ay qabanayaan aad bay u fududaanaysaa. Marka haddaynu marka hore soo qaadano epithelial tissue, waa maxay epithelial tissue? Epithelial tissue waa tissueska dahaara jirka xaggiisa sare. Marka tissues waxaa sidoo kale dhihi karnaa tissueska ugu sareeyo tissue-yada waa epithelial tissue. Marka asiga ayaa waxa u qaybsamay dhowr noocyood. Waxaa ka mid ah noocyadiisa simple squamous. Kuwan sida sawirka kaaga cad waa kuwa falaad ah, waxaana badanaa laga helaa afka, xididada dhiigga, wadnaha iyo sanbabada ayaa badanaa laga helaa. Number 2 cuboidal ayaa kuwa lahaay ayaa ka mid ah epithelial tissueska. Kuwa marka sida magacooda ka cad shape-kooda waa cuboidal, badanaana glands-ka secretion-ka sameeyo kuwan ayay ku sameeyaan. Tusaale ahaan salivary glands-ka haddaad u fiirsato, secretion markay sameynayaan salivary glands-ka waxay secretion ku sameeyaan as a cuboidal epithelium. Number 3 simple columnar ayaa jiro. Kuwani waa kuwa dheer, markaas shape-kooda haddaad si fiican u fiirisid waxayna badanaa qabtaan shaqooyinka absorption-ka ama waxay ku badan yihiin meelaha absorption-ka ay ka dhacaan oo ka mid ah small intestine-ka, mindhicirada yaryar ayaa ka mid ah meelaha absorption-ka badanaa jirkeena ka dhaco. Number 4 waxaa jira kuwa la dhahayo transitional epithelial. Kuwan markaa waxay u dhaxeeyaan cuboidalka iyo columnarka ay si guud ahaan u dhaxeeyaan. Number 4 waxaa jiro kuwa kale la dhahayo pseudocertified. Marka kuwan waxay u egyihiin kuwa isdul saaran, laakiin waxay tagaan ilaa xagga hoose oo ah basement membrane. Epithelial cellska dhammaantood hoostood waxaa ku yaalo basement membrane oo aad muhiim u ah, sababta oo ah xidido dhiig ah ma imaadaan epithelial cellska. Marka waxay nafaqada ku helaan basement membrane hoostiis ayaa waxaa ku yaalo blood vessels iyo nerves, kuwaas oo nafaqada siiyaan epithelial cellska. Number 2 waxaynu ka hadli doonaa connective tissue oo ah tissue-ga labaad uu jirkeenu leeyahay. Marka shaqada ugu weyn ee connective tissue-ga oo inoo hayo waa inuu isku hayo unugyada jirkeenu uu leeyahay. Tusaale yar haddaan soo qaadano, guriga markii la dhisaayo waxaa lagu dhisaa dhagaxaan ama jaajuuro. Kuwaas kaliya haddii la dul saaro way soo daadanayaan. Waxaa loo baahan yahay cement ama shamiinto, kuwaas oo isku hayso dhagaxaantaas ama jaajuurtaas. Sidaas si la mid ah jirkeena waxaa isku hayo connective tissue. Unugyada jirkeena si guud ahaan waxaa isku hayo connective tissue. Shaqooyin kale ay inoo qabataa connective tissue-ga waxaa ka mid ah structural support, in qaab dhismeedka jirkeena ay ilaaliso. Ayaa shaqadeeda ka mid ah. Sidoo kale waxaa ka mid ah shaqada ay inoo qabto connective tissue-ga defense function oo inay ka qayb qaadato difaaca jirkeena.
maadaama ay ku dhex jiraan cellska ka qayb qaadanaya difaaca jirkeena oo ka mid ah plasma cellska, lymphocyteska, neutrophilska, eosinophilska, basophilska iyo mast cellska. unugyadaas ayaa ku jiro oo ka qayb qaadanaya difaaca jirkeena. Number 3 waxaynu isla eegi doonaa muscle tissue oo ah tissue-ga saddexaad oo jirkeena uu leeyahay. Marka muscle tissue marka wuxuu inoo sameeyaa stabilization oo tusaale haddii jirkeena tusaale haddii jirkaaga muscle kasta hal mar uu dhaqaaq uu sameeyo dhibkeed ayay lahaan lahayd. marka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu u talagalay in muscle-kaaga uu meel u haysto meelna uu ka dhaqaaqo. tusaale yar haddaynu soo qaadano gacantaada waxaa ku yaalo laba muruq oo lagu magacaabo bicep iyo triceps. bicepsku waa muruqa xagga sare kaaga yaalo, tricepskana waa kan xagga dambe ku yaalo. marka waa inay labadaas muruq ay sameeyaan isweydaarsi oo midna uu qaataa contraction, midna uu qaataa relaxation. marka sidaas ay waxay ku sameynayaan stabilization. si guud ahaan muscle tissue waxaa loo qaybinayaa 3 qaybood: skeletal muscle oo ku dhagan qolfoofka jirkeena uu leeyahay, number 2 cardiac muscle oo ku yaalo wadnaha, iyo smooth muscle oo ku yaalo internal organska oo jirkeena uu leeyahay. number 1 haddaynu soo qaadan skeletal muscleska badanaa waxaa lagu qiyaasaa 640 ilaa 700 oo muruqo ah inay yihiin skeletal muscleska, waxayna ka qayb qaataan 40% inay culayska jirkeena ay sameeyaan ayay ka qayb qaataan. kuwaana waa kuwa la xakumi karo skeletal muscleska oo gacantaada adiga soo dhaqaaji karo, murqaha ku yaalo, lugaha murqaha ku yaalo adiga soo dhaqaaji karo, sidaas la mid ah. number 2 cardiac muscle kuwa lahaay ayaa jiro. kuwaan waxay ku yaalaan wadnaha waana kuwa la xakumi karin sababtoo ah waxay ka qayb qaataan badanaa inay bump gareeyaan dhiigga wadnaha uu leeyahay. number 3 smooth muscles ayaa jiro. kuwaan waa kuwa la xakumi karin badanaa waxay ku yaalaan stomachka ama caloosha. number 4 nervous system. haddaynu qeexno nervous system waa shabakad ka kooban nerve cells iyo fibers kuwaas oo fariimo u gudbiyo dhammaan qaybaha kala duwan ee jirka. nervous systemka si guud ahaan waxaa loo qaybiyaa 2 qaybood: central nervous system oo loo soo gaabiyo CNS iyo peripheral nervous system oo loo soo gaabiyo PNS. central nervous systemka waxaa la isku dhahaa brain iyo spinal cord, halka inta kale oo soo hartay waxaa la isku dhahaa peripheral nervous systemka. marka brain iyo spinal cord waxaynu dhahaynaa waa central nervous system. nerveska kale ee jirka uu leeyahay ee soo haray waxaa la dhahaa peripheral nervous system. marka nervous systemka si guud ahaan wuxuu ka kooban yahay neurons iyo glia cells. neuronska waa kuwa ka qayb qaadanayaan in ay gudbiyaan fariimaha. tusaale ahaan wax kulul ayaa taabatay, maskaxda ayaa loo gudbinayaa, isla seconds ayaa laga soo jawaabaya. waxa gudbinaya fariintaas waa neurons. sidoo kale waxaa jiro glial cells oo ka qayb qaadanayo in ay difaacaan neuronska. nervous systemka aad ayuu u weyn yahay, waa system aad u weyn, laguma soo koobi karo daqiiqado kooban. marka waxaan ugu talagalay in aan ka sameeyo muuqaal si gooni ah kaga sheekeynayo nervous systemka, wuxuuna noqon doonaa muuqaalada soo socdo insha Allah taala. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe inoo saarto si aad ula socoto casharo caafimaad oo taxanayaal ah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.